noloshu waa imtixaan. dad ayaa ku fikira maalin walba in ay dhibaateeyaan dad kale ama ay dhibaato ay u geystaan. qisadani waa qiso cajiib ah. haddii aad nasiib u yeelato oo ay ku soo gaarto walaal, sii sheer garay oo la wadaag asxaabtaada kale si ay ugu noqoto mid ay ku cibro qaataan. waxayna ku bilaabanaysaa qisada sida tan. waxay ahayd gabar Ilaahay ku manaystay qurux iyo habsami wanaagsan. haddana waxay ahayd gabar indhoola oo aan waxba arkin. wiil ka mida wiilasha badanaa xumaanta jecel ayaa ogaaday in gabadhani ay indho la'dahay oo aysan waxba arkaynin. waxa uu damcay in uu gabadhani farxumeeyo. waxa uu ogaaday in wiilka la dhashay inantu ama gabadhu uu kaxeeyo maalmaha kale oo uusan maalinka axadda guriga uusan joogin oo uu ka maqan yahay. kadib wuxuu go'aansaday in uu maalinka axadda uu guriga yimaado. waxaa la gaaray maalinkii axaddii. wiilkii ayaa gurigii u soo dhacay. inantii oo keligeed joogta ayuu arkay, wuuna afduubtay oo gaadhi ayuu ku ritay. waxa uu la tegay gurigiisa. waxa uuna ku yidhi, inantii ii fasax inaan ku farxumeeyo iyo in aad i diiddo oo aan qasab kugu kufsado. gabadhii yareed waa ay oyday. waxaana ay ku tidhi, walaal Ilaahay ka baq oo iska kaydaa. maya 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 ayuu ku jawaabay. waxay ku tidhi, waayahee hal codsi baan wataa. waa maxay ayuu ugu jawaabay codsiga aa wadato. waxay ku tidhi, 2 rakacadood ayaan tukanayaa, kadib waxaa doonto igu samay ayay ku tidhi. waayahee dhaqso duko ayuu ku yidhi. subxaan allah, inantii salaaddii ayay gashay. intii ay salaadda ku jirtay ayay alla ka bariday inuu ka badbaadiyo dhibka ay ku sugan tahay. inantii markii ay 2 rakacadood dhammaysatay ayay hareeraheedii eegtay. waxay islahayd askar iyo cid buu alle kuu soo diri, laakiinse may dhicin. ninkii halkii ayuu ka qaylinayaa. maxaa kuugu dhacay ayay ku tidhi. wuxuu yidhi, waxba ma arkayo. miskiinkii araggiisii ayuu ugu awood sheegtay. allana araggii wuu ka qaaday. allaahu akbar. maxaad maalin walba ama maxaynu maalin walba u samaynaa ama ugu awood sheeganaa gabdhaheena Soomaaliyeed ama qof walba oo aan ka awood badannahay oo aan awooddeena iyo xooggeena aanu tusna oo aan ugu dhibaataynaa. fadlan walaal, muuqaalkani haddii uu ku soo gaaro nasiib aad u yeelato, waxaan kaa codsanayaa in aad sheer garayso si ay ugu noqoto dadka kale mid ay ku cibro qaataan. waana ku mahadsantahay daawashada.